haddii bangigaaga oo magacaada ku qoran ay kugu soo dhacdo lacag adig aanan shaqaysan oo tiro badan maxaa samey lahayd oo beritoolana lagu qaban karo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. seetiin saxibadeen ma ii fiican tihiin? maanta dhinacaas South African tageynaa. arrintan waxay ka dhacday South Africa. gabar student ah oo jaamacad dhigato baa bangiga lacag dadkaas waxay qabaan iyo inta waa waddanka Ingiriiska waa qabnaa. bangiga bisha dadka lacag usoo dhacdo oo ku saabsan student loan la dhahayo lacagtaas adima lihid laakiin deen waa beritoole markaa shaqo bilaabatid lacagtaas dib aa u celinay 3 sano 4 sano lacagta aa qaadatay dib aa u celinay. haddaa dib usoo celin weysid markaa shaqo bilaawdid oo lacagtaada aad bixin kartid aad bilaawdid haddaa dib usoo celi weysid waxaa kugu koraayo interesta kugu koraayo riba kugu korayso wayna kugu badanaysa hadhooti meer aa wax gaaraysaa aad bixin weysid noloshaada dhan ugu daba taagnaani. marka gabadhaan Sibongile Mani al dhaha magaceeda. marka qisadana galina intaan qisada bilaabine waxaan iga codsanaa sida caadiga ahayd haddaad nala joogto oo weli subscribe-ka aan saarin adoo aad iyo aad u mahadsan. subscribe-ka saar haddaa hore noogu joogteen oo subscribe-ka ii saarteen jazaakallahu khayr. qisadana ku sii soconayna marka gabadhan South Africaanka ah waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah soo kacday bishii lacagta usoo dhacaysa la gaaray bangiga fiirsan waxay sugaysaa bangiga inuu kusoo dhaco 1400 oo lacagta South Africaanka ah. haddaan igu bedelo dollar uu sahlan yahay dollar igu bedelo waxa waaye $85 ee u dhigmataa. bishii soo dhacdaa waxaa loogu talagalay buugtii qalimaadka iyo baska iyo waxay cunleed inay ku cunto future-kana way soo gudiyeen lacagtaas. bankigeeda saan u furtay bishii la gaaray lacagtii sugaysay fiirisay meeshay ka sugaysay inay hesho 1400 waxay ka heshay 140 milyan oo lacagtooda. haddaan ku wareerin oo kugu soo gidiyo dollar ahaan waxay noqonay 770 kun oo dollar waay. yacni 1 milyankii wax yaraa ka dhiman. marka gabadhii 770 kun oo dollar markay heshay ma ayna fikirin khaladka meesha ku socda ma ayna raadinin maskaxdeeda ma ka shaqaysiinin waxaa ku soo dhacday lacagtan anima ii soo dhacday maxaan ka bilaabaa inaa iibsado maxaan gataa maxaan ku suubiyaa taasaa ku soo dhacday. horey beeba magaalada ka gasho waxay bilowday shopping inay bilowdo inay dhar gadato iPhone inay gadato reerahooda inay baarti u dhigto saaxiibadeed maxaa la dhahaa gabdha saaxiibadeeda xataa inay iPhone u gado adduun inay gataan adi lacagtii waa lagu tuuntay. saas iskaga baashaalayso oo gabadhi nolosheeda isbedeshay oo jaamacadda ay ka tahaybo gabadha laga dambeeya labiska iyo quruxda iyo gacan furnaanta bay maxaa la dhahaa dukaan ay tagtay waxbay iibsatay rasiidka marka la siinaayey rasiidka wuxuu sheegayay sida bangiga oo kale wuxuu sheegayay inta isticmaashay iyo inta kugu hartay rasiidku ilowda way iska baxday. gabar kale imaatay iyadoo meel fiirsanay iyadoo wax gadanayso rasiidkan aragtay waa iska fiirisay markay fiirisay waxay aragtay in uu student uu yahay geedkan gabadhan magaceeda ku qoran yahay mataqaana ayada magaca gabadha ku qoran student qofka inuu yahay ku qoran iyo waxaa ku qoran 770 kun waxaa laga isticmaalay 40 kun dollar laga isticmaalay 730 kun meesha ku jirto way yaabtay. lacagta meesha ku qoran waxa waaye kaarka meesha ku yaalan waxa kaarka student lagu yaqaano. gabadhii sawir ka qaaday waxay dhigtay social media dhigtay maxaa ka dhacday marka social media way isqabsatay dhalinyarada dhan way arkeen jaamacadaha dhan waa laga arkay gabarta ilgooniya lagu yeeshtay. marka dhalinyarada dadka badanaa way ku faraxsanaayeen way ku gashay inta xagga ugu dambeyntii qof malawayna hal qof oo madax adag malawaynaya mogta oo jecleen waxyaalahaas oo kale xanaag daraadis bay baxday waxay u sheegtay meesha ninkii university xukumay u sheegtay waxay tiri heblaayo lacag tiro badan ay haysataa ay qaadanaysaa waxaan u maleynaa waxbay soo qalad weyn ah marka la ogaado qof student intaas lacag ah ma haysan karo oo backgroundkiisa u jeedid inuu qof caadi iska ahaa shalay toole. gabadhii ayadoo iska raaxaysanayso oo lacagtii ku dhammaysay wax aanan qiimo lahayn ku baashaalayso 40 kunna ee baaba'satay. ninkii jaamacadda oo kaabaha ka ahaa booliisku u wacay booliisku waa kana waa u yimid gabadhii waa la watay waxaa la geeyey waa la xiray markii la xiray waa la wareystay ma hadlin afkeeda xiratay abukaatay qabsatay wadanka joornaalka tviyada meel kasta lagu soo qoray
gabadha waxaa kasoo horjeesteen dad badan way kasoo horjeesteen, student badanna way la jiraan, student badan way kasoo horjeesteen. Dad waxay leeyihiin wayna baaba'satay lacagta mustaqbalkeena intaas qofood oo arday qaadan lahayd sanadkii wax ku baran lahaayeen, maxaa la dhahaa, ayadaa saas ugu baaba'satay oo waxaan kusoo bisay. Dadna waxay leeyihiin well done, waa kuula jirnaa camal. Alaa ay xaal nin kasta opinionkiisoo dhibtay, sidii sheekada saas u socotay, maxkamadda dheeraatay, abukaatayaal badan oo waddanka degan u imaadeen oo maxaa la dhahaa inay caawinaan oo la jiraan gabadhii. Waxaa la dhahay maadaama oo lacagtay usoo dhacday inay sheegtay ahayd. sanadka labaad jaamacadday dhigataa, dhaqaalihii bartaa, way og tahay maxaa la dhahaa in waxyaalaha oo criminalka way taqaanaa inay waxay ahayd soo sheegtay ahayd. mustaqbalkeeda way u dhammaatay. waxaan sameynaynaa in aan u gelino liiska inay tahay tuugo. abukaatayaashan waxay ku doodayaan gabadhan tuugo ma aha, qalad bay leedahay. lacagta inay isticmaasho ma ahayn, lacagta inay soo celisay ahayd, laakiin tuugo ma aha. ayadoo meel fadhiso wax mayna soo dhicin, wixii usoo dhacay, wixii usoo dhacayna way isticmaashay. marka qofkaas tuugo ma la dhihi karo, waxaa waaye ma ahan daacad la dhihi karaa. marka magaceeda gabadha yaa lagu ciyaarin, yaa laga gelinin liiska oo tuuganimada yaa laga gelin liiskeeda, markaas hadhowti mustaqbalkeeda meesha shaqo ka doonan lahayd, wax kasta ka doonan lahayd, qof wax siinaayo ma laha. marka lasoo fiiriyo police check, marka lasoo fiiriyo CV-geeda lasoo raadiyo, waxaa ku qornaanaya inay tahay tuug. marka dhalinyaro waayaan waxaynin, ayadana waxay tiri reerkeyga anay ugu xiran yihiin, inaa aniga reerkeyga aan masruufaa laga rabaa, dadkeyga anaa caawino, marka hal ii naxariisto. alaa ii taxaal 5 sana la dhahay lagu cabaa gaalshiro. way ka dooday, way diiday. 5 sana miyay soconaysa tiri. abukaatii haddana waa laisku soo noqday, waa loo dooday, adiga waa laga soo maxaa la dhahaa waa laga soo qabtay inay 5 sana ay gelin meesha. waxaa lagu xukumay inay subiso community service waxa la dhahaa, magaalada xaaqaysa, dharaa lagu gelinaa uniform saacado badanaa lagu siinaa. saacadahaasi todaa magaalada kusoo xaaqee, banaankaa soo xaaqee, qashimadaa soo aruurine, waa imaanee, waa bookin gareynaysaa inaad subis saacadahaas, qadaan ku jekin gareynaa inaad samaysay in kale. marka iyo in dhakhtar ay aado, dhakhtarka madaxa aado oo iyada ahaan maskaxdeeda la fiiriyo, iyo maxaa la dhahaa in ay nolosheeda maxaa la dhahaa ay si fiican wadato mustaqbalka. dhakhtarkaasaa loo diray oo adeega madaxa. sheekadeen maanta intaasay ahayd, intaasaan la wadaagi lahaa. marka su-aasha adeeg kugu taagan tahay anige, maxaa sameyn lahayd haddii ay lacagtaas ahli lahayd? ma celi lahayd oo maxaa la dhahaa oo ma dhihi lahayd waxaanaytood dembi ahaanay kusoo dhaceen, halayga qabto lacagtaanaytood ma rabi? ambe inaad ka cabsatay allah subxaana watacaala maal adi aan lahayn oo maxaa la dhahaa inaad iska celisid, mise waa ku baashaan lahayd sida ayadoo kaletood. maanta intaasaan la wadaagayay. aad iyo aad umahadsantihiin. jazaaka allahu khayr. rabbi subxaana watacaala waxaan ka wada baryaynaa inuu noo naxariisto, naxariistiisa waasica noogu naxariisto, uu nagu geeyo jannatul firdaws aclaa, annaga, idinka, waalidkiin, waalid muslimiin ban. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciyaalkeen sii doonaya.